Bismillah, assalaamu calaykum. Maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, hadba ka idin tahay. Isku soo noqod wanaagsan mar kale. Insha Allah waxaan sii anbaqaadi doonaa barnaamijkeenii programming languageska iyo waxyaabaha loo isticmaalo oo qaybta shanaad aan ku eegi doono C sharp. Ayadan waxaan ka eegi doonaa waa maxay C sharp, halkeed ka baran kartaa, maxaa loo isticmaalaa, yaa isticmaala yacni tech companies-ka, qaar ka mid ah software ama application ama website C sharp lagu sameeyo ama C sharp isticmaala iyo sida caadiga ahaydba what's next. So waa maxay C sharp? C sharp waa general purpose multi-diagram programming language. That means multi-usage haddii aan iska soo koobno sidii kuwii hore qaar badan aan soo aragnay. C sharp waa modern, inkastoo sagaashamidii ay soo baxda haddana still waa modern oo languageska cusub dib ka soo baxay ay ka mid tahay. Waana object oriented, which means boy sidoo kale waa type safe. Taasi waxay ka dhigan tahay waxaan aqaanaa programming languageska qaar iyo frameworkyada sida Java camal ama Flutter data type muhiimad gooni ah ma siiyaan. Oo tusaale camal haddii aad haysatid laba variable oo integer 5 ay kugu jirto iyo ka soo qaad string oo hadal caadi uu kugu jiro, waad isku diraysaa plus dhigaysaa waad isku join garaynaa. Laakiin C sharp ma laga yeeli doono. Sidoo kale haddii aad haysatid ka soo qaad integer variable haddii aad haysatid lagama yeeli doono inaad ku shubtid string value. Marka type safe sidaas ayaa laga wadaa. C sharp ninkan dhahay Anders Hegelsberg ayaa sameeyey oo Microsoft u shaqeynayay sanadii 2000 ayuuna soo baxay official release-keedii oo stable ka ahaa, inkastoo sagaashamiyadii la soo saaray laakiin still ana development ayay ahayd waagaas. waxaana proofkeeda ay heshay 2003 oo IGMA ay ka heshay oo si toos ah loo aqoonsaday. Marka waqtigan hadda aan marayno oo dhamaadka 2021 ah, C sharp version-ka ugu dambeeyay waa C sharp 10 ayuu maraa. Wuxuu la soo baxay .NET 6 oo asana ah .NET version-ka hadda ugu dambeeya. So halkeed ka baran kartaa C sharp? Waxaad ka baran kartaa website-yada sida Udemy oo paid ah, inkastoo koorsooyin free ay ku jiraan, Codecademy, Coursera, edX, W3 Schools, tutorials point maxadina website-yada marka freecodecamp.org xataa wuu jiraa. YouTube channels-ka asiga ugu horeeyo freecodecamp.org, Angel 6 midka ay dhaansan, Brocode iyo kuwa kale fara badanba. Buugtana waxaan ka soo qaadan karnaa C sharp in depth, Moraji C sharp iyo Head First C sharp iyo kuwa kale ayagana badan. So maxaa loo isticmaalaa C sharp ayadan applicationska ama usageskeeda? waxaan ka soo qaadan karnaa window applicationada kala duwan ayaa lagu sameeyaa, website development ayaa lagu sameeyaa oo qaybta live framework waxay leedahay ASP oo C sharp back end-geeda ama code behind-keeda uu C sharp noqonayo. waxaa lagu sameeyaa game development oo sida noo imaan doonto waxay leedahay qayb Unity oo gameska loogu talagalay. Mobile apps ayaa lagu sameeyaa, Xamarin ay leedahay oo aydan loogu talagalay framework mobile applicationada C sharp in lagu sameeyo. Desktop apps caadiga aan aqaan taasi waa caadi oo lagu sameeyaa. Cloud based services ayaa lagu sameeyaa oo sida Azure services iyo waxyaabaha kale. waxaa lagu sameeyaa enterprise software-yada kala duwan sida office applications, Word iyo PowerPoint iyo waxyaabahaas waa lagu sameeyaa. Windows client applications kala duwan ayagana waa lagu sameeyaa sidoo kale. So yaa isticmaala kambaniyada C sharp isticmaala ayagana tech stack sida ay sheegayso warbixin 2218 kambani ayaa isticmaala, inkastoo xaqiiqda aan la hubin haddana waa lambar aad u weyn. waxaa ugu horeysa Microsoft oo shirkadda C sharp leh, Stack Overflow aan naqaan, Delivery Hero waa isticmaalaan, Alibaba Travelers ayagana sidoo kale, Accenture sidoo kale waa isticmaalaan, Pluralsight, Statista, Institute kambaniyadaasi oo dhan iyo kuwa kale kasii badanba waa ay isticmaalaan C sharp. software-da lagu sameeyo waxaa ka mid ah Microsoft Visual Studio caadiga, inkastoo qayb badan oo ka mid ah uu C++ uu ku dhisan yahay. haddana C sharp ayadoo ka mid ah C family languageska oo Java, C sharp, JavaScript, C++ iyo sida caadiga oo isku standard. Hunt Showdown asana waa software kale oo lagu sameeyay. Monodevelop asana waa software kale. Unity oo hore aan usoo sheegnay game-ka lagu develop gareeyo asana C sharp ayuu ku dhisan yahay. Collectica sidoo kale asagana C sharp ayuu ku dhisan yahay. Sharp Develop sidoo kale.
Open Dental asna sidoo kale C# ayuu ku samaysan yahay. Flash Develop sidoo kale. Windows Installer oo XML-ka ah. Paint.NET asna sidoo kale. Keybase, Benshare iyo ilaa hadda Nmath, I don't know, software iska fara badan oo qaarkood image processor iyo waxyaabo badan loo isticmaalo. Binta sidoo kale asna software kale waaye. OpenRA sidoo kale asna waa another software oo C# lagu sameeyey. Elephant asna midkaan dhahay asna I don't know, software and application ayaa jira oo lagu sameeyey wax ma aan halkan lagu soo koobi karo. So asna kasta ayadana markii C# hadda meel walba ay gashay oo AI waa gashay hadda waxaa aad loola isticmaalaa IoT and Internet of Things iyo meelo kale oo fara badan oo halkan aan ku soo koobi karin. In badan oo ka mid ah Azure services ayada lagu sameeyo ama lagu manage gareeyaa. Kambaniyada isticmaalayaan hadda waa sii kordhoyin oo koodii hore ayada asal ahaan waxaa loo sameeyey in Java la tartanto oo shirkadda Oracle hadda ay leedahay. Laakiin waxaad moodaa in badan in hadafkii laga lahaa iyo mid kasii weynba ay gaartay. So muhiimada waxay ahayd aniga inaan soo gudbino meelaha loo isticmaalo aan taageeraysanayni ama waxyaabaha loo isticmaalo iyo kambaniyada isticmaalo iyo sida ay u isticmaalaanba. So muuqaalkeeni intaas ayuu ku ogyahay tan iyo kulankeena dambe. Assalaamu calaykum.